Rajab Tayyip Erdogan martida sharafta leh iyo warbaahinta garabnimo wanaagsan. Waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idinkula suganahay halkan magaaladan quruxda badan ee Ankara, caasimadda dalka aan walaalaha nahay ee Turkiga. Waxaan madaxweyne Erdogan uga mahad celinayaa casuumadda uu noo fidiyey. Waxaan sidoo kale idinla wadaagayaa in kulankeenni maanta uu ahaa mid miro dhal ah oo guul ku soo dhammaaday oo ku salaysnay walaalo ka kulmay dan caam oo ka dhaxaysa ummadahooda iyo ayagaba. sida aan la wadaagay walaalkay madaxweyne Erdogan, dawladda Soomaaliya iyo dadkeeda waxay u arkaan dalka Turkiga inuu iyo dadkiisuba saaxiibo dhab ah iyo walaalo garab taagan dalkeena Soomaaliya. dadaalka aan ugu jirno kamira dhalinta xasiloonida iyo horumarka shacabka Soomaaliyeed. walaalaheen Turkiga waxaan abaal weyn uga haynaa taageeradooda hagar la'aaneed ee ay ku tayaynayaan laamaha amniga kabka miisaaniyadeenna, taas oo kaalin weyn ka qaadata barnaamijka dib u habaynta dhaqaalaha, xoojinta xirfadaha dadkeena, maalgelinta adeegyada bulshada ee asaasiga ah oo ay ugu horeyso waxbarashada iyo caafimaadka. waxaa intaasi dheer iskaashiga aan leenahay arrimaha caalamiga ah ee labadeena dal wada saameeya. waxaan sidoo kale qirayaa dadaalka iyo deeqsinimada dawladda Turkiga iyo dadkeeda ay uga qayb qaadanayaan xaaladda bini'aadamnimo ee ay muwaadiniinta Soomaaliyeed wajahayaan. annagoo uga mahad celinayno kaalinta ay dawladda Turkiga ka qaadatay dadaalkii aan kula tacaalaynay xanuunkii COVID-19, annagoo ka duulayna mudnaanta ay leedahay maaraynta xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. waxaan magacaabay ergey gaar ah oo hogaaminaya dadaalka aan ugu jirno wax ka qabashada abaaraha. tani waxay marag u tahay sida ay nooga go'an tahay inaan si degdeg ah oo wax uga qabanno saamaynta ka dhalatay abaaraha, annagoo kaashanayna saaxiibadeena caalamka oo ay Turkiga ugu horeyso. arrimaha quseeya dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee ay sababeen abaaruhu waxay ka mid ahaayeen qodobadii aan uga wada hadalnay madaxweynaha kulankeenii maanta. waxaan mar kale fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan ugu baaqo walaalaheenna Turkiga in ay gacan ka geystaan inta karaankooda ah sida ay horeba uga geysan jireen. garab istaageenna wuxuu wax weyn ka tari doonaa badbaadinta nolosha dadka Soomaaliyeed, mana ahan doonto wax la iloobi doono waxa aad na tarteen. wadahadalkii aan yeelanay aniga iyo madaxweyne Erdogan waxaan kaloon hoosta iskala xariiqnay in xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya uu muhiim noo wada yahay, isla markaana ay naga go'an tahay inaan xiriirkaas ku sii xoojinno iskaashi iyo wax wada qabsi aan ka yeelano dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha, ganacsiga iyo dhaqanka. Soomaaliya waxay Turkiga u aragtaa jaal iyo saaxiib miisaan leh oo ay aaminsan yihiin shacabka Soomaaliyeed, kaas oo lagama maarmaan u ah horumarka iyo barwaaqada aan hiigsanayno. waxaan ku soo gabagabeynayaa hadal jeedintayda kooban inaan si weyn ugu mahad celiyo walaalkay mudane madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan sida uu xil gaar ah isaga saaray kor u qaadidda iyo horumarinta xiriirka labadeena dal ee walaalaha ah. dadaaladiisii hagar la'aaneed iyo tallaabooyinka wax ku oolka ahaa ee uu qaaday sanado badan ka hor waxay xaqiijinayaan in labadeena dalba ay ka jiraan fursado casri ah oo faa'iido inoo wada leh, kuwaas oo sii adkaynaya xiriirka soo jireenka ah ee aan wada leenahay labadeena dal. waxaan rajaynayaa inaan sii adkayno aasaaska adag
ee uu ku qotomo xiriirkeenna oo aad ku dardargelisay booqashadaadii ugu horreysay ee aad Soomaaliya ku timiday sanadkii 2011 waxaan rajaynayaa inaan mar kale kugu soo dhaweeyo Soomaaliya mustaqbalka dhow haddii Alla yiraahdo. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane madaxweyne. Sayın Cumhurbaşkanı, saygıdeğer bakanlar, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Somali 2011 yılında uluslararası toplumun tabiriyle çökme noktasına gelmişti. O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuz mesajını vermiştim. Ziyaretim vesilesiyle Mogadishu Büyükelçiliğimizin açılışını yapmıştık. Dünyada malumunuz en büyük büyükelçilik binamız Somali'dedir. 80.000 metrekarelik bir alanda inşa ettik ve bir başka ülkede bizim böyle bir büyükelçiliğimiz yok. Tabii bundan dolayı da ayrıca buradaki büyükelçiliğimizle iftihar ediyoruz. Ve müteakiben Türk Hava Yolları Somali'nin 20 yıllık yalnızlığına doğrudan seferler başlatmak suretiyle son verdi. Malum 2011, 15 ve 16 yıllarında 3 kez Mogadishu'yu ziyaret ettim. 2012-2017 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı görevini deruhte eden değerli kardeşimle o dönemde birlikte attığımız adımlar Somali'nin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Aradan geçen zaman zarfında sağlıktan eğitime, altyapıdan kapasite gelişimine kadar Somali'ye her alanda destek verdik, vermeye devam ediyoruz. TİKA, Türk Kızılay, AFAD Başkanlığımız başta olmak üzere birçok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece resmi kurumlarımız değil, önemli sayıda sivil toplum kuruluşumuz da yardımlarıyla Somalili kardeşlerimizin yanında yer alıyor. Mogadishu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi yalnızca Somalili değil, bölge ülkelerindeki kardeşlerimizin dertlerine de derman oluyor. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere Somali'nin birçok alanda önemli gelişme sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşimin Cumhurbaşkanlığı görevine ikinci kez gelmesiyle sonuçlanan seçimlerin Somali ve Somalili kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kıymetli kardeşimin liderliğinde görev alacak yeni hükümete şimdiden başarılar diliyorum. Türkiye bu dönemde de Somalili kardeşlerinin yanında yer almaya, uluslararası alanda Somali'nin sesi olmaya devam edecektir. Kıymetli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Somali ilişkilerini ayrıntılarıyla ele aldık. Muhtelif alanlardaki işbirliğimizi artırarak sürdürme ve ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim etme konusunda mutabık kaldık. Somali'de hükümetin kurulmasının ardından bu konuda hızla gerekli adımları atmak hususunda fikir birliğine vardık. İkili ticaret hacmimiz geçen sene %31 artarak 363 milyon dolara ulaştı. Tabii bu noktalara 2003 yılının
2 milyon dolarlık seviyelerinden geldiğimizde akılda bulundurulmalıdır. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel meseleleri de ele alarak Somali'nin istikrar ve güvenliğinin tüm Afrika boynuzu için taşıdığı öneme vurgu yaptık. Bugüne kadar 5.000 Somalili askerin eğitimini tamamladık. Ayrıca 1000 özel harekat polisine eğitim verdik. Türkiye olarak Somali'nin istikrar ve güvenliğine, terörle mücadelesine katkılarımızı sürdürme kararlılığımızı bu vesileyle buradan tekrarlıyorum. Değerli basın mensupları, Somali ülkemizin Afrika kıtasının ekonomik kalkınmasına, sosyal barış ve istikrarına verdiği önemi gösteren temel örnektir. Türkiye olarak kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle işbirliğimizi artırmaya gayret ediyoruz. Kıtayla ilişkilerimizi geliştirerek sürdürme noktasında kararlıyız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken kıymetli kardeşim Şeyh Mahmud'a ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum.